ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka ayaa burburiyey kadibna gubay beero uu ka baxayay maandooriyaha loo yaqaano xashiishka oo ay lahaayeen maleeshiyada argagixisada al-shabaab kuwaasi oo lagu beeray degmada kuntuwaarey iyo deegaano hoos yimaado. kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in maandooriyaha xashiishka ay u dhiibi jireen ganacsato si ay ugu sii iibiyaan dadka isticmaala iyagoo ka heli jiray dhaqaalo fara badan, waxaana dadka deegaanka ay noo sheegeen in halkii kiilo ee xashiishka ay ku gadan jireen lacag ku dhow $100. tirada beeraha xashiishka ah ee kumaandooska danaba maanta ay gubeen ayaa waxa ay gaarayaan in ka badan 10 beer, waxaana la inoo sheegay in madaxda kooxda al-shabaab oo ku qaraabata magaca diinta ay iyaguba isticmaalayeen maandooriyahan halista badan. sidoo kale carruurta ay u adeegsadaan isqarxinta iyo dagaalada ayay siin jireen xashiishka si markii uu sarqaamo loogu diro inuu naftiisa haligo oo uu isqarxiyo xasuuqana dad aan waxba galabsan, taasi oo looga dhigayo inay tahay camal diini ah. sidaasi waxaa idaacadda codka ciidamada qalabka sida u sheegay taliyaha guutada 16aad ee kumaandooska danab gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig Maalin, waxaana uu intaasu ku daray in sidoo kale xashiishka ay ku fasahaadin jireen ummadda Soomaaliyeed. qofka xusuustiisa waa yaraanaysaa, fikirkiisuna waa inuu ka fikiro waxa uu ku jiro na waa iska yaraanaysaa, taasoo macnaheedu tahay qofku inuusan ma dhib bahaynba wax dhibaato ma hayaan ileen daroogadii ayaa u shaqaynaysa. waxyaabaha kale oo ku sameynaysa qofku waxaa ka mid ah qofku inuusan ogeyn xaalku meesha uu ku sugan yahay, waqtiga ka dhumaya intuu leegyahay, dhibaatada naftiisa u geysanayo. macnaha waxaa ka dhumaya dareenka inuu fahmo meesha uu joogo xaaladiisa iyo wacdiga uu ku sugan yahay asagoo shakhsiyan, ayadana waa dhuminaa reality-gaas dhan waa uu ka baxaa asagu. diinteena suuban waxa ay mamnuucday isticmaalka iyo ka ganacsiga dhammaan maandooriyaha noocyadiisa kala duwan uu ka mid yahay xashiishka, taasina waxa ay caddeyn u tahay kooxda argagixisada al-shabaab ku dhaqanka diinta islaamka halka ay ka joogaan. cabdifataax akhyaar, SNA Radio, degmada Kuntuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose.